wasiirka cadaaladda Soomaaliland ay weheliyaan barasaabka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco ku-xigeenada barasaabka iyo maayirka taliyaha qaybta asluubta gobolka Togdheer iyo taliyaha qaybta booliska ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay jeel weyn oo yeelan doonta magaalada Burco kaasi oo laga dhagax dhigay halkii uu hore u ahaa jeelka weyni jeelkani oo qaadi kara xaddi aad u badan oo maxaabiisa kaasi oo ka badan kii uu hore u qaadi jiray jeelkii hore ayaa waxa dhagax dhiga jeelkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye maayirka degmada Burco Ustaad Maxamed Muraad iyo taliyaha qaybta asluubta gobolka Togdheer waxaana ay ku dheeraadeen baahida u qabeen jeelkani iyo sida ay xukuumadda Soomaaliland ugu dhiiratay fulinta dhisitaanka jeelkani runtii aad iyo aad waa noo faananaga maanta waxay noogu tahay anagu oo joogna oo madax ka gobolka Togdheer maanta hadday noo hirgashay oo dhagax dhigayno jeelka weynaa magaalada Burco annaga iyo wasiirka cadaaladda Xuseen Axmed Caydiid oo maanta in badan hawsha nala galay ka shaqeeyay maanta nala dhagax dhigaya taariikhday noo galaysaa waxaan ku faraxsanahay in ay noo hirgashay dadaalkii iyo orodkii iyo halgankii aan u galayno inuu dhismo jeelkaas madaxweynaha tiraba 3 jeer baan kala hadalay waraaqaan qoray ilaahay subxaanahu wa ta'aala sharafaas iyo wasiirkuna aad buu shaqeeyay sidoo hawshaas ay u hirgeli lahayd waxaan ugu mahadnaqayn madaxweynaha qaranka oo naga aqbalay codsigeygii markii aanu u sheegnay Burco inaana jeel ku filan maanta aan haysan badan baynu sugaynay haddii aanu nahay ciidanka asluubta iyo dhammaan reer Burcaba in loo dhiso jeelka Burco kaasoo xilligii hore ee la dhisay waxa waqti fog oo marka la sheegayo 1944 ayaa dhismaha imika taagan ee aynu ku shaqeynaa ayuu dhismayba ayaan warbixinta ku haynaa ilaahay ma hadii weeye maanta hadii uu suura galo inoo suura galay oo ay inoo suura galisay dawladdeena maanta joogta ee madaxweyne Axmed Maxamed Silaanya madaxweynaha ka yahay hadii ay inoo suura galisay ilaahay ma hadii weeye waa ku hambalyeynaa wasiirka cadaaladda Soomaaliland Xuseen Axmed Caydiid ayaa isaguna dhankiisa sheegay inuu jeelkani yahay ka ugu weyn jeelasha Soomaaliland isla markaana uu qaadi karo maxaabiis tiro badan oo gaadhaya ilaa 1000 maxbuus halka waxaan doonaynaa saaka inuu inooga amba qaadmo dhismihii xabsi dhexe Central Prison aynu ku tala jiray inuu noqdo ka ugu qaad weyn dalka maanta ka ugu casirsan inuu noqdo ugu quruxda badan waxaan rajaynaynaa inuu ka hay'aduhu dhiseen ee Hargeysa ku yaala inuu bilic iyo sharaf iyo adkiba ka bataabay rajaynaynaa insha Allah si kastaba ha ahaatee jeelkani oo isagoo mid ay baahi weyn u qabtay magaalada Burco isla markaana aanu jeelkii hore qaadi kareynin maxaabiista ayaa tani waxay fududeyn doontaa in maxaabiistii loo dhaadhicin jiray Mandheera lagu hayn doono magaalada Burco Shaafici Maxamed Ibrahim telefishinka Somali News gudaha magaalada Burco.